Bismillahir Rahmanir Rahiim. Wali waxaan ku jirnay barashada home inagoo wadna toolkii aan u qaadanay qaabka warqad qurux badan aad u samaysan lahayd. Waxay nagu joogtay font color. Maanta waxaan baranaynaa text highlight color, waxaan baranaynaa fill color, show shading loo yaqaano. Waxaan baranaynaa superscript iyo subscript iyo extract through. intaas ayaynu ku baran doonaa iyo line spacing. marka ugu horeysa waxaan ugu horeysiinaa goobtani maxay qabataa, goobtan iyo labadan goobood maxay ku kala duwan yihiin. horta aynu tijaabino markaas aan dib u sharaxno. hadda halkan Axmed baad qoraysaa inoo weyne saad si fiican u aragto. dabadeed halkan soo Axmed background waxaan u sameeyay background leh midab inta uu ku fadhiyo xaraf. fiirso background leh midab inta uu ku fadhiyo xaraf, laakiin goobtani shading isagu line ka dhan xabad dheer buu ka jiidanaya. waad arkaysaa isugan ku tuso imanka hal line eeg mid dhan buu ka jiidanaya xabad dhan. isagu waxay ku kala duwan labadani. kani line dheer buu sameeyaa waad arkay ilaa halka. laakiin markaad rabto qoraalkaaga in yaro midab ku kooban oo background ah waxaad tagaysaa meesha la text highlight color oo loogu talagalay waa ka midabka doontaad ka dhiganaysaa waa ka. laakiin kani wuu ku balaarinaya waad arkay. waxay noo yimid bal si fudud marka uu fahmaysaa waayo waa daawasho. halkan imika waad fahantay markaad leedahay iga qaadna waxaad leedahay no color baad leedahay. iga daa mid color haysaa no color baad leedahay. kana marka tigis waxaad leedahay no color baad leedahay. iga daa baad leedahay waxyaabahan meesha igu qorto hadda maxayna sababtu inoo haystaa kan waa maxay. kan sababtu inoo haystaa waxa weeyaan kana halkan recent kana haysta marka waxaan sameeynaa mid kale samaysano. intaa markaan sameyno ayaa waxay noogu xigay meeshanu sheeganay kale waxay ahayd labadan aan sharxayna xisaabta lagu qoraa. imika 8 power 2 baa lagu leeyahay 2 ga afarta dul saar baa lagu leeyahay. halkeed ka saari kartaa highlight-ka unba 2 unba highlight-ka saaraysaa waad saartaa ka power xagga hoose dhigaysaa subscript xagga hoose dhiga labadaba midna xagga sare midna xagga hoose dhig baa lagu leeyahay. 2 kale qor dabadeed highlight-ka saar xagga sare dhig balan ku soo celiyo hal mar. imika waxa lagu leeyahay macnaheedu labadan ayaa waxa lagu waa 2 gan asalka hore waa sidan saasi waxa lagu midna xagga hoose gee midna xagga sare. marka 2 gan highlight-ka saar ka saraan geeyay kan kale highlight-kan saaraya subscript aan dhigay ka sare waxa la yiraahdaa superscript. waxa la isku qaban karaa control plus shift plus laba plus oo adigi. kan kalena waxa isku qaban karaa control plus equal waa subscript. kan waa subscript kala daba fiirsan subscript. si yar oo fudud fahanteen. kan waa maxay qoraalka waa timir waan ku tijaabinaa. waxa la isticmaalaa markaad rabto hal line inaad ka cayinto layman kale dabadeed si aad uga cayinto aad xariiq hoos mariso umbada highlight ka marinaysaa hal mar bas dhex marso bal fiirsan imika xariiq baa dhex yaala. waan kartay inta markaad samayso ayaad waxaad sameyn kartaa oo kale inaad kan halkan xariiq aad double ka dhigi karto. waxaan teginaa font-iga halkan taala font-igaas teginaa font-ka ma aragtaa ayaan teginaa xageen ku teginaa si yar oo fudud baynu uga tegi karnaa more colors more underlines waa ka halkan aan inta nota ka dhigan karaysa isu waxaan jeedaa waa kan double halkaas waa hal string link no decade halka waa hal xabo laakiin double baan ka dhigay double marka double ka dhigo waxaan underline buu ku dhex jiraan more underlines ma tiga warqada markaasaan ka dooranaya markaasaan double underlines ka dooranaya kadib casharkeennii aynu ku baraynay shading iyo text highlight color iyo superscript
iyo subscript iyo struct through halkaas ayaynu ku joojinaa casharka kale line spacing casharka dambe raacayna insha Allah